الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaan anigoo cabdidaayim xuseen awdiiriye ahna xoghayaha guud ee ururka wacyigelinta badqabka cuntooyinka Somaliland waxaan halkan maanta ummadda reer Somaliland ugu soo gudbinaynaa barnaamij wacyigelineed oo aan u bixinay talo walaal. barnaamijkaas wuxuu si toos ah u quseeyaa ku socdaa walaalahaya ganacsatada dhexe. markaan leeyahay ganacsatada dhexe waxaan u naqaanaa ganacsatadan baqaarada iyo haddii la guraya supermarketyada iyo kuwa yarna waa taqaan waa kuwa yar iska haddii la guraya yar ee kuwa ku sii xiran. waxaan kaloo talooyin siin doonaa si toos ah warshadayaasha haddii la guraya hay'adaha fayadhowrka iyo kuwa tayada Somaliland ee heer degmo iyo heer qaranba. waxaan isweydiinaynaa waa maxay talo walaal barnaamijka la yiraahdo. waa barnaamij wacyigelineed oo aan urur ahaan diiradda ku saarayno sidii loo daryeeli lahaa sharaabyada, biyaha, raashinka, caanaha, cosmetics iyo shay'aasha kale ee ku jira caagadaha ama bacaha. waynu ognaho maanta suuqa Hargeysa hadaad dhex marto waxaad arkaysaa gelin hore iyo gelin dambeba agabka aan ka sheekeynayo ama badeecada ama bagaashka waxa loo yaqaan ka sheegayno waxay intooda badan la dhigaa xagga hore oo ay ku dhacayaan marka cadceed ku dhacaya humidity iyo waxyaabo kale. barnaamijka talo walaal wuxuu kaloo daba socdaa barnaamij hore aan u jeedno ahaa waa sidee tayada cuntada Somaliland. marka hore waxaan nidhi cunto marka laga sheego weelkan ama shaygan cuntada ku dhex jira laba ayaynu qaybnay. qayb waxaan u bixinay wax loo yaqaano internal factors oo intii aad la socoteen waxa weeye internal factors waxa la isku yiraahdo food ingredients iyo nutritional factors. marka maalinta barnaamijka kaas u mudaarnaa wax la yiraahdo ingredients ama internal. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo externalki intee baa la isku yiraahdaa factors waa temperature-ka, heerkulka, waxa kamid ah humidity, pressure-ki, waxaas kamid ah amount of sunlight-ka. haddaba markan qodobka koowaad ee maanta dul istaagayna waxweeyaan mar haddeen bagaashkeeni daryeelkooda aynu ognahay maanta halkay marayaan inaan ummadda u bidhaamino ganacsatadaasi aan sheegnay saameynta yeelan doonaan. heerkulka aan soo qaadno. heerkulku wuxuu ka mid yahay ama heerkulka cuntooyinka wuxuu ka mid yahay ama tiirarka ugu waaweyn ayuu ka mid yahay ee ka qayb qaata fayadhowrka cuntooyinka. waxaan u maleynayaa inaan taa ku baraarugsan taasin doonayno ku baraarug waana mid ka mid ah sababaha dhaliya in badeecadaha cimri degdeg waxa la yiraahdo afka qalaad waxa la yiraahdo shelf life waa cimri shay kasta cimri buu leeyahay sida bini'aadamkaba cimrigeena ummadda Nabi Maxamed alayhi salaam aynu 60 ayaa waxaan cimri u leeyahay. marka temperature-ka ama heerkulku wuxuu ka qayb qaadanayaa cimri degdega ku imaanayo cuntadaas. inta doonta ha loogu talagalo warshadaas ha ugu talagalaan. haddaba heerkulku macnaha waxa jirta matalan maalmo dhaweed bari dhexdaasa ilaa qeyr hasiye agaasimaha waaxda fayadhowrka dowladda hoose wuxuuna siiyay una ogolaaday xog kaasoo ah in sanadkii hore tagay 2018 la gubay cuntooyin dhacay lagu sheegay oo dhan 338 tan oo cunta. bal hadduu Hargeysa kaliya waa inta iyagii loo geeyay ama ay soo ururiyeen 41 tan oo cuntada kamid ah waxa waa dawooyin 54 kamid ah waxa waa raashin
98 ka mid ah waa sharaab wuxuu doon ha ahaadee 136 waa cosmetics inta soo hadhna waa waxyaabo kale oo ay dhaceen haddaba maxaan maalinta discussion ka fahnay 338 ka tan ee la gubay ee expire ee waaxda dawladda hoose gubtay qaar ka mid ah waxa ahaayeen sharaabyo ama cunto waqtigeeda aan gaadhin dhicisteeda hadana dhacwa sharaabyo waqtigeedina ma gaadhin waana dhaceen kadib markaa waxaan bilaabnay urur ahaan inaan u korogarno sababta taasi u dhamaaneen cilmi baaris oo aan eegayna markaa waxa inagu aan actualkayna ah iyo idolka sida caalamiga ah haddaba waxa noo soo baxday ama dado ama idinku ba ogtihiin sharaabyadeen iyo biyaheena inaanay la daryeelin oo ay yaalaan xagga hore ee meheradaas waxaanay si cadceedda falaadhaha cadceedda ay ku dhacaan subaxa hore iyo ka hore iyo ka dambaba humidity-ga ay u banaan taala haddaba xogtaan hayno waa nocma waa mid ku salaysan cilmi baarisyo ay sameeyeen dunida ama dunida wax weeyaan ama dawladaha aadka u daneeya arrimaha bulshada waxay isweydiinayaan muxuu yahay cimriga cuntada ama wax shaygu yeelanay مثلا إما شرابك وصوصة وشذيب الحوار 2 سنة 5 سنة وحد دونها وشيء 5 سنة عمري قال لي سلف تايم كلي راهو حدي عد عيد كود عضو أما هي يمدت كود عما فاكتوريس كاي كود عان وحنا غني يمد عمري قال كسود الدك هالكي لبضة سنة لغاية إنه كود ما هذا سنة ديمر وعن قرنا الشراب يضع مركها ما عقدها بيها سكوتشران ما يصحوين كوكله سيدا عادي أما عنتظر واحد لدوني إن لو inaanay temperature-kooda heerkulkooda la dhaafin 32.2 centigrade ama Celsius sida caadiga ama room temperature badeecadaha walaal ganacsaday biyaha ama sharaabyada moorgaraysan ku keedi marfish yo waa kabadh marfisho meel loogu talagalay kabadho ama meelo kale oo ku haboon daryeelka si la mid ah cuntooyinka oo mas'uuliyadda koowaad qodobka koowaad waa ka labaad walaal sharaabyada iyo biyaha ku jira caagadaha ku keedi deegaan qaboob oo aan soo gaadhin shucaaca qoraxda meel qaboob halkaad banaanka ka dhigayso waxa ka haboon marfishkaaga hoostiisa inaad ku keedsato inaad ka ilaaliso iyaguna muhiim adigoo qodobka saddexaad adigoo ka fogaanaya kiimikooyin khatarka ku ah ee ay ka mid yihiin kiimikooyinka lagu dhaqo dharka ama wax lagu nadiifiyo waa bahashan la yiraahdo jaafeerka oo kale tinderka kamida stambarka kamida rinjiyada shidaalka iyo shayaas sunta leh ama urka qarmuun leh waxa la doonayaa biyaha ama sharaabkan caagadaha ku jira inaad intaaba ka ilaaliso aad ka socdo aad si inventory control gaad samayso waliba rasadu waa shay aad u muhiimsan oo keena dhicista waxa jira sharaabkii hore marka lagu keeno waxa la rabaa kan stooka hore markaad saarto inaad kuwa dambe aad hoosiiso oo kuwii hore yaalay sirayaan marka alaabahaas ka soc laakiin maanta maxaad u malaynaysaa ganacsiga walaal waxaan filayaa inuu wixii isku dhex daadsiin qodobka afraad ka ilaali inaad ku keediso meel aan dadnayn waaka meelan had lahayn ha ku dhigin ama ha ku keedin ama qashin qob u dhow waaka meel aad qashin ku qubto biyaha iska dhigin ama caaga waxa yeelay sharaabka waana meel laga yaabo meelahaas maxaa loo diiday waxa laga yaabaa inay ka soo gaaraan qiiqa
kiimikooyinka meesha haday furanta wax ka soo gaarayo kuleelka saayid ah ama ileeska cadceed saddexda arrimoodna waxay keenaysaa in cimrigii marka maxay ay yaraadaan qodobka shanaad waxaa laga digayaa inaad sharaabyada ama biyaha u dayso deegaan banaan oo kuleel badan marna qabow badan waa mafrishka xaqan hore aad dhigaysaa waxa kuleel badan maalinta ku dhac habeenkina qabow badan baa ku dhac waa lagaaga digayaa walaal iska daa sidoo kale biyaha ha dhex dhigin gaadiid xilli cadceeda waxaana haboon in gaadiid qaada rarka biyaha ama sharaabka uu yahay gaadiid loogu talagalay halkaa waxaynu garanaynaa maanta inta badan qolooyinka warshadleyda ama salismaniska soo iibgeeya sharaabyada iyo biyaha gawaadhida ay ku qaada waa gawaadhi luxury weyn ama nooha noqoto ama ha noqoto haddii lagu rooyahay bas waa kuwa daaqadaha inta badan way xireen meelo waxaa la iska dhigaa marka cadceedda ku dhacayso kuleelka badani wuxuu keenayaa in temperature-kii loogu talagalo uu dhaafo marka waxaa halkaa marka maxaa loo baahan yahay in la daryeelo haddii ifanba gaadhiga dani kuu geyso dhaqaale dee mukeefyada ha u shidnaado waxaa kaloo iyagu muhiimsan ifanba imaka qof bilaadan oo imaka wax aad gaadhigaaga haddaad kaga dhex tagto caagad biyaa daaqadaha xidhan oo aad ka tagto uumiga ka baxayo waad dareemi karaysa lixdaa qodob waxawey waa fariin aan u dirayno ganacsatadaas digniin maxaan kaaga digay haddaba haddii aad daryeeli weydo sharaabyada ama biyaha maxaa macmiilkaaga ku dhaci kara waa ka halkaynu socono imaka xaaladeen ku sugan waana halkaynu adkeysan weyno ururahan waxaa la xaqiijiyey isticmaalka biyaha iyo sharaabyada aan sida wanaagsan loo daryeelin ee ay inta badani ku dhacaan falaadhaha cadceedda ay sababaan kansarka naasaha haweenka ku dhaca ma dareemi karaysa mas-uul darada maanta aana daadsaneyn halkaa adeegtay ee cagadaha cadceeddu ku dhaceen inay saacidaan ama keenaan kansarkaas iyo kuwa ku dhaca ragga kaa waa qodob noocyo kamid ah xanuunada maskaxda ku dhaca oo maanta aynu garanayno sida ay nagu badan yihiin brewster glank qanjirkan weeyaan weliba ilmaha yare hooyada uurka leh markay cabto qanjirkaasi ayuu ilmaha yare uurjeefka ku dhacaya iyo kuwa yarba dhiigkarada maanta aad arkaysaan waxaa keenaya waxaa daryeel la-aanta macaanka maantayna haya waxaa kaloo dhaca in ragga isticmaala biyaha si aan la daryeelin ama sharaabyada caagadaha ku jira in xaddiga qiyaasta loogu talagalay spermiska ama noolaha yaree ku dhex jira shahwaadkiisa inuu hoos u dhaco kaana laga yaabo inuu keeno madhaleysnimo aakhirka dambe wuxuu kaloo keenaa cayilka xaddhaafka waa intaa weyn digniintu waa intaa waana wax maanta ummaddeena mujtamaca ay haysato walow researchadu ay weli si buuxda caalamka aanay isku wada raaceen laakiin waa wax intaa doodoodu taagan yahay ayay noqonayaan haddaba sababta la isweydiinayo nacma sharaabkan la daryeeli waayey ee cadceeddu ku dhacda sidee buu xanuunada u keenaya aynu isweydiino waa maxay sababta caagadaha cuntooyinka lagu moorgareeyo u sababaan xanuunada halista ah marka ay la kulmaan xaddi ka badan heerkulkii loogu talagalay saasa muhiim la imika xagga qoladu scientific ayaan la hadna waa cilmiyeynina historiga hada caagadahani goorma inoo yimaadeen ama adduunyadu yimaadeen inta la ogyahay tan iyo 1960 iyadii 1960maadkii waxaa inta badan caagadaha laga sameeya isku dhiska loo yaqaano BBA oo loo soo qabo by bisphenol A maadada loo yaqaan ama isku dhiskaas siiba waa caagadaha nooca laga sameeyo polycarbonatiska waa laga sameeyo kuwaas oo caagado lagu
dahaadho cuntooyinka iyo sharaabyada ay ka mid yihiin biyaha. waxaan ugu leenahay ma waxaan soo baanay. waxaa kaloo laga sameeyaa caagadaha cosmeticska waa kuwa. qalabka waxaa ka mid ah qalabka ciyaaraha sportska ay ku ciyaaraan ayaa ka mid ah baadan markaa laga sameeyo BBA-dan. dawooyinka waxyaabaha ayaa laga soo sameeya oo sharuubooyinka waad aragto qaar baa ku jira caagadaha. dental device qalabkan markaa ilkaha iyo waxaa loogu talagalay. dental filling silk kan ilkaha lagu xidho. CD-yada DV-yada agabka guryaha ee electronics laga isticmaalo. framekan muyaaradaha isagana waa laga sameeyaa iyo beebiska beebka biyaha baalada lagu xidho linkaxa lagu xidho. hadda maxaa dhacay marka hadaba halka marka ay isku dhiskan loo yiraahdo BBA uu helo kuleel ka badan ka qolka caadiga waa 25 centigrade wixii ka badan ilaa 32.2 wixii inta dhaafsan wuxuu bilaabayaa inuu la falgalo biyaha. maadadii isku dhiski ee caagadan ay ka sameysneed ayaa wuxuu bilaabayaa inuu la falgalo biyihii oo laakiin aanad arkin adoo. waana sababta ay u sababaan xanuunada kor ku xusan. marka maxay BBA-dan isku dhiskani kuleel badan markuu ku dhaco wuxuu la soo falgalayaa biyihii ku jira meeshani kadib markaa saas ayuu bilaabayaa tala bixintaanu siineen waxa weeyaan mid ku socota ganacsatada dhexe ama yar. walaal ogow macmiilkaagu waa adiga, waa ilmahaaga, waa gabadhaada, waa abba, waa ehelkaaga, waa ummadeyna. raac fariinta bilaa caleyk raac fariinta kor ku xusan oo sharaabyadaan iyo biyahan iyo waxaan daryeelkooda samee oo 6 qodobayna sheegna raac. tala bixinta labaad waxaan siinay warshadleyda ama shirkadaha soo keena ama sameeya biyaha ama sharaabyada ee caagadaha ku jira weeyaan. hadda kuwa quraarada waa very nice kuwaas. jooji bilaa caleyk jooji gaadiidka lagu qaado badeeco ee aan waafaqsaneyn heerka badqabka iyo fayadhoorka caalamiga. markaan saa kulana gaari luxury ama family car markaad tiraado biyihii baan ku qaadaya ama sharaabkaan soo dhigaya walaalo waxay noo keenaysaa dhibaatooyinkaasi bilaa caleyk jooji. waxaa kaloo iyo fayadhoorka caalamiga labadan ma waafaqsana. wax kastana waa taqaano standard bill in la raaco oo wax kasta laga rabo. isla markaana waa inaad sameysaa kormeer lagu baraarujinayo macmiishooda macmiishooda waa ganacsadii dhexe iyo kuwii yaraa adaa waxa u keenayo supply u ahe mas-uulna kaa saaran tahay cuntadaada inaan matalan haddii ka hor companiga dhicistaada hadday bataan khasaaro badan bilaad environmentkii baad wax yeelaysa bulshadii baad wax yeelaysa. waxaa kaaga haboon markaa in kormeer guddi aad sameyso oo dhantina oo iyo seminaaro la siiyo ganacsatada la joogteeyo la tago ganacsatada la yiraahdo halkan ka daa meeshii lala dhigi laana la habay wixii ka dambeeyana la ganaaxo si ay daryeelka ay u daryeelaan macaamiisha marka u daryeelaan badeecadahaas. kuwa talada bixinta saddexaad waaxda fayadhoorka dowladaha hoose jamhuuriyadda Somaliland, hay-adda tayada jamhuuriyadda Somaliland, wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland waa in ay diyaariyaan qorshayaal isla markaana la dhaqan geliyaa xeerar u yaala daryeelista badeecadaha. isla markaana la sameeyo dabagal waana mas-uuliyad idin saaran idinkoo ka shidaal qaadanaya xanuunada aynaan lahaan jirnay imika ee dalka kusoo badanaya. wabilaahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.